hay-adda samafalka iyo taakulaynta ee anfac oo la kaashanaysa xafiiska maareynta khatarta masiibooyinka ayaa 40 qoys oo isugu jira dad danyar ah iyo agoon lagana soo kala xulay xaafadaha maamulka magaalada Jigjiga u qaybisay gargaar isugu jira raashin iyo agabyo kala duwan. Cabdiqaadir Abuukar Cabdi oo ah xubin ka mid ah hawlwadeennada hay-adda samafalka iyo taakulaynta ee anfac ayaa faahfaahin ka bixiyay deeqdani ay hay-addu ku wareejisay dadka danyarta ah. xaggan maanta waxaan ugu mahadcelinaynaa xafiiska maareynta khataraha masiibooyinka ee dawladda deegaanka oo annaga oo hay'adda anfac anagoo kaashanayna waxaan maanta u qaybinay raashin busto maxaa la yiraahdaa caw iyo saliid iyo bariis dad gaadhaya 40 qoys oo ka kooban dad danyar ah iyo agoomo annagoo isla markaana ka bixinayna dadka bajaajtii qaadi lahayd iyo taxigii ay ku qaadi lahaayeen raashinkaas la siiyay maanta maadaama lagu jiro waqti aad u adag isla markaana maciishadii ay qaali u tahay isla markaana ay jirto dhibaatooyin aad u fara badan oo dhanka maciishada ah ay faa'iido u leedahay maanta inaan siino isla markaana aan gaarsiino dadka danyarta ah iyo agooma iskugu jira. dhankooda qoysaska danyarta ah ayaa bogaadiyay deeqdani ay siisay hay'adda anfac waxayna tilmaameen inay ku soo beegmayso xilli ay deeqdani u baahnaayeen. waan aad iyo aad hay'addan anfac wiilasha u adeega ee ku magacaaban anfac aad iyo aad si kalsooni ah oo firfircoon oo cadaalada ninba wixii maalinka alla ka siiyay dadka ugu qaybiyaan ay noo siiyaan insha Allah haddii ay noo siiyaanna si fiican baan uga guddoonnay mahadcelin ballaaran ilaahay on kun iyo kow goor ugu shukri naqno yaanu kaga qaadanaa dadkuna waa badan yahay meelo badan intan quraba ma ee wadankii anficin ba alla u qaaday anficin ba ilaahay u qaaday kuwa adeegana waa iyagu insha Allah anfac labaad weeyaan aakhira fil jannati adduunkana fil nicmati fi dunya wal aakhira baan ugu ducaynaa annagana kuwii loo calfo oo ilaahay u barakeeyo Allah naga dhigo xilliga saxar bararka maanta jooga dalay ku hadhuma ninkii waxaystana waa nin isagu waxna ku ganacsanay waxna ka dhadhamin kar laakiin dadkii danyarta ahayd deeqa ilaahay u keenay idin soo dhiibay alxamdulillah aad bay aad ugu reeyeen aydan insha Allah samafalka arka insha Allah de waxay aad wala arkaa waxaan qadnaa waxaan gacanta ku haynaa wala arkaa kulli caga saliida iyo baris barmaan iyo busa intan ka soo gacanta ku taawan kulli saas ilaahay iyo khayr Allah siiyo intay gacan ka geysatay way xageed waxaan salaamayaa dadka gacanta ka geystay iyo samafalayaasha kulli meemad gaaray inoo leeyahay kulli waqti adag ku soo beegantay kulli diwaal iska garanaya dadka baayida gaarka qaban kulli waanahay insha Allah kulli waan saasan ku mahadcelinayaa waqti adag ku soo beegantay waqti aad loogu baahan yahay dhaxantuna ay bilaabantay gaaraan bustaan iyo gowsha insha Allah waqtiyadan insha Allah hay-adda samafalka iyo taakulaynta ee anfac oo jirta in ka badan muddo 4 sano ah ayaa ka shaqeysa howlaha samafalka iyo taakulaynta dadka tabaalaysan.